بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogaanba waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo laba qodob weeyna qodob imaka ismari la yahay oo ismari la yihiin ummadda reer Somaliland iyo siyaasiyiintii waxa weeye waxaan rabaa inaan ummadda u bayaamiyo qodobkii qodob foodin ee uu baarlamaanku ka soo celiyay maalintii dhaweyto keenay maxkamadda ee maxkamadiina dib iyaduna u soo diiday qodobkaasi waa qodob uu ku saxiixan yahay saxiixa Cabdiraxmaan Ciro iyo saxiixii madaxweyne Siilaanyo madaxweynihii barigii hore ee wadanka inuu maamuli jiray labadaasi waxa ay cadeeyeen oo ku cadeeyeen ku bayaamiyeen 10 sano mar in ururada la furay lana furi doono waqtiga liisanku ka dhacay laakiin may oran oo may ku qodobayn bisha shanaad ee bisha lixaad ummadda waxa iskaga khaldan markaa berigii dhaweyto baarlamaankii dhaweyd ee inaga ka dhamaatay uu ka dhamaaday xilkii ay hayeen waxay gudbiyeen oo ay u gudbiyeen madaxweynaha Muuse Biixi qodobo ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno oo aanu niraahno bilmetel 6 bood ka hor ayaa la rabaa in xisbiyadu isa soo sharaxaan oo de la furo oo loo ololeeyo ka bacdina halka lagu furo haddaba qodobka waa la diiday baarlamaanku uu diiday madaxweynuhu markii hore soo diiday isagoo cadeynaya inay iska hor imanayaan doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada wuu diiday waynu ognahay qodobo badan buu ka soo jeediyay baarlamaankiina sidoo kale iyaguna u qaateen ay u laaleen waa tii xubnihii tegay ee maxkamadda dacwadda u gudbiyay loo soo cadeeyay iyagana maxkamadda u soo cadeysay inay arrintaas qaraar ay ka qaateen oo ay ku celiyeen baarlamaankii haddaba dadka maxaa maanta aan u bayaaminayaa in maanta aynu diyaar u nahay si doorashada madaxtooyada u dhacayso ummadoo dhintaa waa in horta ogaato taasaa diyaar loo yahay waxaan ku codsanayaa Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro labaduba inay si emergency ay ugu tagaan madaxweynaha Muuse Biixi iyaga oo ka codsanaya amaba dee u bandhigaya inay u socdaan maadaamay dalka la maamulayaan oo ay xaq u leeyihiin inay ka wada hadlaan sidii doorashadii madaxtooyada ay u dhici lahayd inay u tagaan saan waqti inooga lumin oo ay amar ku siiyaan inay si dee akuutano emergency looga howlgalo sidii doorashada loogu diyaargaroobi lahaa loo qaban lahaa ajendayaasha inagu soo fool kale laga gudbi lahaa inay u baahiyaan ay u sheegaan saan waqti inooga lumin Mareykan baan tagayaa iyo Ethiopia baan tagayaa inaga danteena maaha danteenu waa ummadda qanciya ummadii baa idin soo eegaysa ummadii reer Soomaaliya oo dhan way idin sugaysaa madaxweynaha iyo labada musharax qaraarada ay gaadhaan ee u soo bandhigaan bulshada iyaga oo cadeynaya in doorashada madaxtooyada loo diyaar garoobayo taas waa qodob waqtiyaan inaga lumin baan ugu idin oran lahaa hana lagu abshiro oo ha lagu farxo in maanta qalalasa wadankeena aanu ka jirin ummadii kortay wixii dagaal isaga yeedhinayay ama saxiixdii ay soo dhamaadeen dad mutacalimiin oo aqoon-yahaniin ay gaar ka hayaan wax kasta oo soo baxo oo la bayaaminayo ama la bandhigayo marka waxaan halkan idinka cadaynaynaa anagoo ah madaxdii reer wadani ee wadanka Sweden in diyaar ay ummadda u tahay ama annaga iyagana aan diyaar u nahay in loo diyaar yahay doorashada madaxtooyada xisbiyaduna ay sugayaan waqtigoodii way sii qoran karayaan way sii urursan karayaan no problem laakiin bisha 12aad wixii ka dambeeya ayay u diyaar garoobayaan sidii ay u soo wada banbixi lahaayeen qof walba awoodiisa iyo wixii haanu hayay iyo wixii yacni quwadu isku hayay inuu bulshada u soo bandhigo ciddii la soo baxda
soo baxda 3 xusbi baa loo baahan yahay oo dowladda dastuurku dhigayaa in la soo dhaweyn doono insha Allah bismillaahi kariim oo madaxweynaha markaa dalka qabsaday uu uu qodobeynayo oo uu magaranaysaa uu saxiixayo shahaadooyinkooda iyo dowladda markaa gacanta ku dhigta 3 xusbi ee xaakin ayaan anigu cadaynaya anigu rajaynaya mustaqbalka madaxweynuhu inuu yahay Cabdiraxmaan Ciro ummadana aan ugu bashaareynaya soo dhawaada aan leenahay dastuur keenaas oo hagaagsan oo horena u hagaagsanaa imakana hagaagsan oo laga sii hagaajin doono iyo madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Ciro oo dalka si wacan maamuli doono annaga oo ah madaxdii reer Suudaan oo garab iyo gaashaan buu isaan u ilaalinayn dalka maamulkiisa iyo nidaamkiisa qorshaysan ee dowladda marka waxaan idin leeyahay walaalayaal ku abshira sidaasaan idin soo dhaweynaynaa ogaada in maanta ummaddu diyaar u tahay doorashadii madaxtooyada marka uu soo noqdo madaxweyne Muuse Biixina ay diyaar u yihiin Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe sidii ay kulan u samaysan lahaayeen ay uga wada hadli lahaayeen si doorashada loo diyaarin lahaa arrimaheeda iyo qodobadeeda qorshaysan aad baan idin salaamaya waa Marwaad Cabdi Faarax oo idin kala soo hadlaysa wadanka Sweden assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh